Assalaamu calaykum. Barnaamijkeena maanta waxaan ka hadli doonaa daawade maxaad ka taqaanaa tirada saynisyahano, mufakiriin, qorayaal, injineero Muslim ah kuwaas oo dhammaantoodba ku baxay gacanta hay'adda sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaan Mossad. Tan iyo 1960-maadkii waxaa la aaminsan yahay in hay'adda sirdoonka Israa'iil ay dishay saynisyahano Muslimiin ah. Bishii Diseembar 2016 magaalada Ifrah, koonfur bari ee dalkaasi Tunisia waxaa lagu dilay saynisyahan lagu magacaabi jiray Maxamed al-Sawaari. kooxda Xamaas ee dalkaasi Falastiin waxa ay ku eedeysay dilkaasi saynisyahanka hay'adda sirdoonka ee Mossad. Kooxdu waxay sheegtay in saynisyahanku kala shaqeynayay diyaarada loo yaqaano droniska sameyntooda. 1967 Mossad waxay dishay saynisyahan arrimaha nukliyeerka ku takhasusay oo u dhashay dalka Masar kaas oo lagu magacaabi jiray Samir Nubayr. Sidoo kale sirdoonka Yuhuudda waxay dileen Samira Muse oo ay ku dileen shil gaari oo ka dhacay dalkaasi Mareykanka. Samira Muse waxaa la sheegay inay dooneysay inay soo duusho dalkeeda hooyo kaas oo ay dooneysay aqoonta xagga tiknoolajiyadda shucaaca nukliyeerka ay uga faa'iideyso dalkeeda hooyo ee Masar. Shil gaari oo ka dhacay dalkaasi Mareykanka ayaa lagu khaarijiyay. Taariikhdu markay 1980 saynisyahan kale oo u dhashay dalkaasi Masar ayaa lagu dilay hotel uu ka deganaa magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska. Ninkan ayaa wuxuu ahaa aqoonyahan ku takhasusay xagga sameynta atomikada shucaaca nukliyeerka waxaana dilkiisa lagu eedeeyay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaan Mossad. Saynisyahanku wuxuu gacanta ku hayay barnaamijka sameynta atomikada shucaaca nukliyeerka ee dalkaasi Ciraaq waxaana lagu magacaabi jiray Yaxya al-Mashaal. Taariikhdu markay 1991 sirdoonka Israa'iil waxaa la aaminsan yahay inay dalka Faransiiska ku dileen saynisyahan u dhashay dalkaasi Lebanon kaas oo lagu magacaabi jiray Ramal Xasan. Taariikhdu markay 1993 waxaa dab la qabadsiiyay kuriga ka deganaa Qaahira saynisyahan caan ahaa kaas oo lagu magacaabi jiray Jamaal Hamdan. Eheladiisu waxa ay sheegeen in ay falkaasi ka dambeeyay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaan Mossad. Waxaa gurigiisii laga waayay dhammaanba buugaagtiisii uga hadli jiray dhibaateynta tacdiyeynta ummadda Islaamka ee Yuhuudda. Taariikhdu markay 1997 jaajuus ka tirsanaa kooxda Israa'iil ee Mossad ayaa ku fashilmay isku day dil oo doonayay inuu ku sameeyo madaxii siyaasadda kooxda Xamaas Khalid Meshaal waxaana fashilkaasi uga dhacay magaalada Jordan ama Urdun. Sidoo kale taariikhdu markay 2004 Ibrahim al-Lahari oo ahaa saynisyahan u dhashay dalkaasi Ciraaq kuna takhasusay arrimaha nukliyeerka ayaa lagu dilay magaalada Yacquuba ee dalkaasi Ciraaq. Taariikhdu markay 2010 waxaa sirdoonka Israa'iil ay ku dileen magaalada Tehraan ee caasimadda dalka Iiraan saynisyahan lagu magacaabi jiray Mascuud Cali Maxamedi. Isla sanadkii 2010 waxay sirdoonka Israa'iil ay dileen Majid Shahriyari oo ah saynisyahan u dhashay dalka Iiraan ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Tehraan caasimadda dalka Iiraan. Dilalkaasi waxaa si toos ah loola xiriiriyay Mareykanka iyo hay'adda sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaan Mossad. Haddaba labadan dowladood kamay jawaabin eedeynta loo soo jeediyay. Taariikhdu markay 2010 sirdoonka Israa'iil waxay dalka Qatar ku dileen Maxamuud Malxuux kaas oo ahaa taliye sare oo ka tirsan taliska ciidanka kooxda Xamaas. Daawade halka ay noo joogto qaybtan kaga hadlaynay tirada saynisyahano Muslimiin ah ay dileen hay'adda sirdoonka Israa'iil. daawade hadduu ku cajabiyay muuqaalkan fadlan subscribe like noo saar xagga hoosena comment noo soo dhig mahadsanid daawade.